عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وإن سود الأوينية محاربة موضوع آد قلبي يقول إن كره الله قصة الأبا أو كل عدي صاحب كي حاس كيسة أو إن مدابة والفربني وهيسي وعيقلين بدنا أن كسمي بمحاربة أنا إذن كي كره الله حنا إلهي كرجيني موضوع عن إنه نقضه مد أي كفايده muddo 3 sano ka hor ayaa magaalada London waxaa ku geeriyooday inaan aad iyo aad u jeclaa saaxiibanahay xaaskiisa kaasoo dhimatay xanuunka kansarka la yiraahdo kaasoo kaga dhacay xubno jirkeeda ka mid ah oo aan rabin inaan halkan ka sheego. ninkaas waxa uu ahaa nin xoog badan aqoon badan dadku ay aad iyo aad u jecel yihiin. xaaskiisana wuxuu u jeclaa si xadka ka baxsan. xaaskiisana aad buu u jeclaa 3 ciyaal ayay u haysay 2 mataana ah iyo mid kale oo kaligiisa. xanuunkaas gabadhaas in muddo ayuu hayay wayna qarsanayeen oo dadkeenu waa dad qadarta ilaahay markii qofka u timaado xataa inaan ku eedeyno oo ku xumayno oo ku nacno weey. kansar baa ku dhacay goorma dhimanaysaa meeqa lagu qabtay wax yar baa ku dhiman qofka asagoo nool ba hadba cad goosanaysaa mana ogid. hadal xanuun badan oo waxa weeye dadka daqranaya weeye. على كل حال يعني حوار إذن كدالين صاحبكي حاسكيسي ويكيريوتي walaalkeena Allah u naxariisto gabadhaas asagiina maskiinka xanuunka dhimirka ayaa ku dhacay dhibaatadii soo gaartay awgeed. codkayga ma maqashaan? I think codkayga si fiican baa loo maqlaa. codkayga haddaa maqashaan waan soo qoraa asxaabay idinkoo mahadsan. Thank you. codkayga haddaa maqashaan waan soo qoraa. Okay, good way maqashaan. Thank you aad baa mahadsantiin. haddaba saaxiibkay waxaa ku dhacay xanuunkaas dhimarka ayaa ku dhacay kadib markii xaaskiisii ay kansar u dhimatay. asagiina waxaa la leeyahay waa waalan yahay madaxaa laga hayaa madaxaa looga jiraa dhibaato noocaas. marka haddii xanuunkii la isku caayayo oo qofkii xanuunsaday la caynayo oo la leeyahay kansar baa ku dhacay aqoonta kansarka u leenahayna ay yar tahay dadka specialistaha oo ku takhasus Soomaalidana ay yar tahay qofku ku dhacaba uu qarsado dadkeena dhibaato familkaas waxa u imaanaysa xanuunka qofka shakhsiga qoyska ka mid ah ka badan baa u imaanaysa. sida awgeed waxaan doonayaa galabtiina in kala hadlo sidii loo samayn lahaa wacyigelin qofka xanuunku ku dhaco gaar ahaan maalan kansarka oo kale haddaan ka hadlayno inaan la caayinin la xumaynin la oran goormaa dhimanaysa goormaa tegaysa labadiina kan hormaraya ilaahay baa og. mawdkana waa loo siman yahay. sama garanin kansarku sidaan ognahay waxa uu leeyahay 200 oo nooc weeyaan. bowel cancer baa jira kuwa kale oo kansar fara badan oo kala duwan ayaa jira kan laabta dumarka kaga dhacaa jira kan dhuunta ku dhacaa jira sigaarka iyo waxyaalaha inta badan noocaas laga qaado mid maskaxda ku dhacaa jira. wiigan waxaa la iisoo sheegay keliya 2 qof oo isku qoysa oo xanuunkaa u hayo oo Soomaaliya oo ku nool dalka Mareykanka. marka waxaan doonaynaa inaan dhisno online community Soomaali ah oo fikradooda iyo ra'yigooda isdhaafsata oo aan isku caayinin xanuunkan oo aan isku dhibanin qofkii xanuunka uu ku dhaco loo naxariisto. hooyadaaba ku dhici karaa xaaskaaba ku dhici karaa aabahaaba ku dhici karaa walaalkaaba ku dhici karaa. waxaana ilaahayga raxmaanka ayaa keena.
sheekada waa mid ay haysata aadan cabdirasaaq soo dhow ilaahay subxaana watacaala caafimaad ku sii ola ama qofka xanuunsanayo qoyskiinaba ah. haddaba walaalayaal, xanuunkaas ayaa dad fara badan oo soomaaliya ay la nool yihiin, laakiin waxay ku nool yihiin qarsoodi. nolol aad iyo aad u dhib badan ayay ku nool yihiin. kuwa halkan jooga, kuwa wadankii joogana waad aragteen mararka qaarkood in la soo geliyo youtube-yada hooyo soomaaliya joogta oo hooyadu dee jirkeedu cawro maahane naaskii bararay oo madaxayga ama kaaga uu ka weynaaday ayaad arkaysaan oo dhibaatadaas haysata, oo xataa kiniini yar aan haysanin oo xanuunka ka qaada. dabadeedna jirka intiisa kale ayuu ku fidaa, laabtu u gudbayaa, sanbabadu u gudbayaa, jirkiibuu goosanayaa. waana xanuun cadow ah oo very aggressive ah. aniga adigu galabta halkaanaan fadhinaa, caafimaad baana qabnaa. inaan ka qeyb qaadano wacyigelinta xanuunkaas iyo sidii loola dagaalami lahaa oo dadkeena aqoontooda kor loogu soo qaadi lahaa, uusan u noqon lahayn shay lala yaabo ama la naco ama la dhibsado. haddii qofka kansar ku dhaco macnaheedu maaha inuu dhimanayo. mathalan prostrate kansarka oo kale, xubinta taranka oo raggu ku dhaca, waagii hore waxay oran jireen researchi ay soo saareen ragga waaweyn buu ku dhacayo 50 iyo wixii ka badana. naa waxaa jira dhalinyaro yaryar 20, 25, 24 wiilal yaryar ah uu ku dhacayo. wiil soomaaliya odhan maayo xubintaasaa xanuunkaas igaga dhacay, uu qarsanaya. dabadeedna wuu ku weynaanayaa, jirkii intii kaloo ku fidaya. hooyadii naasku kaga dhacaya way qarsanaysaa, ama cervical cancer waxa la dhaho xubinta taranku kaga dhacaya way qarsanaysaa. mararka qaarkood waxaa dhacda qofka guriga la nool buu qofka kale ka qaranayaa si uu qofkaas uusan u dhibanin ama oga naxinin. marka walaalayaal, waxaa loo baahan yahay qofka hadduu kansar ku dhaco dhakhaatiirta inaan u tagno, daawo la siiyo, qofkuna uu ilaahay isku xiro. markaad kansar maqashid waxaa kugu soo dhacaya qof timihii ka dhaceen, caruuraan dhali karinin, chemotherapy fara badan la siiyey iyo waxyaalaha la midka ah. laakiin kansarku timuhu dhacayaan oo keliya ma ahan, boqolaal nooc ayuu leeyahay. sidaas awgeed saaxiibkay xaaskiisii way dhimatay, isagii xanuunka dhimirkaa ku dhacay. qeyb badan oo ka midana dadkaas daawo waxay u raadsan waayeen. qadarta ilaahay marka laga tago wuxuu qofkaas daawo u heli waayey. waxay tahay dadka soomaalida ayaa ku caayaya, heblaayi kansar baa ku dhacay, heblaayi kansar baa ku dhacay. waxaan xusuustaa hooyo soomaaliyeed oo inankeeda la xiray hadda ka hor. dhibaatadii ugu weyneed waxay kasoo gaartay dumarka soomaalida ah. they unforgiving sometimes siday dadka ola hadlaan, iyo ragguba. wiilka 10 sana lagu xukumay, dariiqay ku arkaysaa. naayaa haynadeer inantii heblaaye soomatiid haa wiilka laga xiray. waxaan maqlay wiilkaagi waxaa lagu xukumay 5 iyo 30 sano. inadeer goormuu soo baxaya? ama wax laga yaaba inay reer banaadir tahay. abaay walaashay ii waran, ma fiican tahay? haa. wiilkaagaa la xiray 30 sana lagu xukumay, maxaa ka jira? si qofka asagoo nool baad cad goosanaysaa. ka waran haddii la oran lahaa kaalay guriga iigu imow, qada yara u samee, one day just ha nafista, give her break yara in la siiyo, u sheekee, ayadoo ha kula hadasho ama asagoo kula hadlo suu qofku u nafiso. laakiin qofkii annagaa caynayno xumaynayna. heer waxay gaartay dhibaatada ugu badan oo ay ka cabanaysa gabadhaas ahayd maxaa la lahaa arrinta ayadaa. waxaa kaloo la mid ah dadka caruurta baahida gaarkaa qaba, annagu waa caynaynaa. calaa kulli xaal walaalayaal, iyo xawaanay orin ku daalinin. haddii qof xanuunkaa qaba aad aragtid, u sheeg inuu ilaahay subxaana watacaala leeyahay, geerida in loo siman yahay, khasab uusan ahayn qofku inuu dhimanayo, sabir iyo daawona lala raadsho. qur-aan fara badan la saaro. qur-aanku waa daawo, laakiin at the same time waxaa loo baahan yahay daawada kale oo caadigaana qofku inuu raadsado. marka su-aasheedu waxay ahayd sidee ugaga hortegi karnaa in la helo dad soomaaliyeed oo dadka aan waxaan ku dhimanin.
maxay ku dhici waxay dadka caddaanka way ka hadlaan xanuunkan marka ku dhaco hebel kansar baa ku dhacay noocaas weeye waa la noolahay sidaas weeye qofkii xanuunkiisii buu baranayaa dhakhaatiirtii daawadii buu baranayaa wuu la noolaanayaa annaga laakiin waa difficult fara badan oon haysata so waxaan ka fikerayay insha allahu tacaala mawduucan inaan idinka idiin soo bandhigo laakiin la helo dad soomaaliya oo waxaan ka hortaga oo anigii adigu aan iska bilowno hadda ka hor barnaamijyo fara badan baan ka sameeyey waana jecelahay insha allahu tacaala mustaqbalka dhow iyo kan fog inaan ka sameeyo waxaad arkaysaa mararka qaarkood dadoo lafaha ogaga dhacay dadoo madaxa ogaga dhacay marka xanuunkaas sidii looga hortegi lahaa waa daruuri waxaan rabnaa inaan ku qaadno dagaal cir iyo dhul ah oo la yiraahdo xanuunkan sidee looga hortegi karaa mideeda kale waxaa kaloo jiro muhiimad gaara leh oo iyadoo laftigeeda u baahan in la iska kaalmaysto waxaa jira dad dhulkii hooyo jooga oo xanuunkan qaba maybe daawada annagoo aan haysano halkaan oo kale inaysan heli karinin laakiin waxaan awoodnaa daawadiina u gadno hooyo maalinleed waxaan t v ka daawaday iyo maaqan youtube wuxuu ahaaye I think inay afgooye meelahaas joogto labada naasba mid ogaga dhacay intaasuu naaskii la ekaaday yacni caqligaaga ma galayo waxaad ka fakertaa hooyada xanuunka haya habeen iyo maalin oo ay taahayso 24 saac way taahaysaa qof kale hooyadii ma ahan adiga hooyadaa wey because hooyo kastoo soomaaliya kulligeen weyna wada dhashay marka xanuunkaas kansarku waa cadow qof kasta waxay yidhaahdaan afartii qofba ku dhacayaa so halkan waxaan hadda ku jirnaa 118 ruux u divide garay inta qof oo naga mido oo inuu ku dhaco jaaniskooda uu badan yahay sidaas awgeed haddaad aragti qof kansar ku dhacay ha ka cararin kansarka qofka haddaad taabtay ma kala qaadaysaan maaha xanuunada kala qaadka ama galmada lagu kala qaado ma aha marka qof xanuunkaas ku dhacay haddaa aragtid fadlan u naxariiso gurigaaga kusoo casun la sheekayso sometimes waxay u baahan yihiin daawada ka sokow inaad dhegaystid oo keliya just shush aan dhegayso qofku inuu nafiso u baahan yahay laakiin markuu gurigiisii uusan ku nafisi karinin oo ehelkii uu ka qarinayo amase maxaa la asxaabtii uu ka qarinayo because annagaa xamanayna soomaali haddaan nahay kansar baa ku dhacay goormay dhimanaysaa dhakhaatiirtu maxay u qabteen kansarku daawo ma lahan who told you that moral support that is the word kansarku daawuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuxa uu yidhi xanuun ma jiro ilaa ilaahay daawadiisu haya samaanad garanin sidaas awgeed waxaan rabaa storigan weji kaloo ay leedahay inaan idiin sheego waxaa jira nin soomaaliya oo igu yiri magacayga sheeganaya meeshaan deganahay laakiin UK degan gabar yar oo dhalay ayuu xanuunkan ku dhacay gabadhu waa madi hooyadeed hore u dhimatay xanuun kale u dhimatay ilaahay dartiis ayada keliya u dhalay xanuunkaas ayaa ku dhacay fadlan waxaad qiyaastaan dhibaatada aabbahaas uu ku nool yahay ogow xanuunka asaga waxa loogu keenay aniga adigana loogu keeni waayey asagu annaga inuu naga sabar badan yahay laga yaabaa ilaahayna wuu ogyahay qofka qadarkiisa inbuu qabtaa oo keliya marka aniga adigu naga karti badan yahay ilaahay wuxuu jeclaystay inuu itixaamo waxaadna ognahay kulligeen qur-aanku inuu leeyahay alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun suuradda cankabuud la yidhahda axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa dadkuma waxay u malaynayaan in loogaga tegayo keliya ilaahay baanu rumayno qora ayagoon la itixaamaynin this is part of itixaamka adduunka lagu maranayo sidaas awgeed ninkaasu waxa uu ku nool yahay nolol aad iyo aad u dhib badan laakiin waa ahlu salaad weeyaan wejiga dhulka kama qaado markaan ku iri arrintan sidee u koob garaysaayoo ola nooshahay wuxuu yidhi
mar kasta oo argagaxo ama dhibaata ii timaado waxaan idhahdaa xasbiya allaahu wa nicma alwakiil. rabbigay baa igu filan, mafaatiixdan isagaan u dhiibtay. in badan oo naga mid ah markii xanuunkaasu ku dhaco meesha xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ay ka oran lahaayeen, waxaa suurtagala inay dhakhaatiirta iyo daawada oo keliya u cararaan. qalbigu daawo ma dego. xaqiiqatan dhakhaatiirtu daawada qalbiga ma hayaan. alaa bidikri illaahi tadma-inu lquluub. quluubtu waxay ku degtaa ilaahay xuskiisa iyo raxmadiisa. ninkaa yar gabadhiisa yartaa waxaa la siiyaa daawooyin jirkeeda uusan u dulqaadan karinin. daawadaa marka la siiyo wuxuu igu yiri waxay noqotaa violent, qof dagaal badan bay noqotaa, naftii bay la dagaalamaysaa. aniga adiga caawa waxay u badan tahay in caruur aan dhalnay, caruurtaasuna ay caafimaad ku joogaan. goormo ayay ahayd last time aan idhaahno alxamdulilah? just ka fakar keliya markii kuugu dambeysay oo aad tiraahday alxamdulilah, inankayga yara wuu caafimaad qabaa, alxamdulilah inantayda yara way caafimaad qabta. you see one ilownaa waxaas. qur-aanku wuxuu leeyahay lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid waid ta'adana rabbukum lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. markaad aragtid qof aan xataa soomaali ahayn oo muslim ahayn uu kansar ku dhacay, u naxariiso. nebi maxamed wuxuu ahaa dadka kan ugu naxariista badan ilaahay soo saaro. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. ilmahaaga caawa chemotherapy lama siiyo. ilmo yaryar maadan aragoo xataa yacni 10 sano aan gaarin oo timihii ka dhaceen because of awoodda ay chemotherapygu ay leedahay ama xanuunka ay leedahay. inaan isku naxariisano daruuri weeyaan. waxaan jeclaa in kugu soo gabagabeeyey sheekadan kansarka ku saabsan faa'iido yar. haddaad youtube-ka ku qortid arrimaha bulshada, qiso xanuun badan oo cibro ku qaadasho mudan, waxaa kuu soo boodaya sawir barnaamijka hadda kahor aan ka sameeyey gabar yar oo soomaaliya, hooyadeed layihahda xamdi sheekh cabdilaahi, london joogta. naftu markay ka baxaysay sawirkeedii baan keenay iyadoo le laa ilaaha ila allah saad farta u taagaysa. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man kaana aakhiru kalaamihi fi dunya laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna. man kaana aakhiru kalaamihi fi dunya, qofka kelimada u dambeysuu dibnaha ka yidhaahdo ay tahay laa ilaaha ila allah, qalbigana uu kaga qanacsan yahay, dakhala aljanna. maftaaxii jannada ayuu haystaa. gabadhaas yartaa qisadeedu waxay lahayd argagixis. 6 sano oo universal tv aan ka shaqeynayay, qisadii iigu xanuunka badnayd oo aan duubay ahayd. faa'iido yar waxay ahayd gabar yar oo aada iyo aada u qurux badan, qoys ahlu diinana ka dhalatay. ilaahay subxaanahu watacaala qadartiisa ayay ku dhacday inuu qoyskaa itixaama. heer waxay gaartay dhakhaatiirtii ay ka quusteen oo dhaheen goor dhow bay dhimanaysaa, gurigiina la aada. waxaan tegay qolkii ay seexanaysay. waxaan ku fadhiistay sariirteedii ay ku seexanaysay. waxaan arkay noodkii dhakhaatiirtu ay ka qoreen. waxaan arkay daawooyinkii loo soo qoray. qaarkood magacoodu adigoo taagan wuu kaa dheeryahay, weligaa ma maqal, xataa lama akhrin karo. so I had to google it sidaan u fahmo waxay yihiin.
waxaan waraysi la yeeshay gabar yar oo ay ku sirqabsan jirtay oo isku da ahaayeen. Faa'iza 17 meelahaasii jirtay, ilmo yar oo saqiir ah. ujeedadeeda iyo baabaskeedu waxa uu ahaayo keliya say hooyadeed ii sheegtay notebookgeediina aan ka akhriyay inay dadka diinta gaarsiiso, dadka xanuunka kansarka qaban ay caawiso oo charity ay samayso. markii xanuunka uu aad u qabto sariirta ay saaran tahay ayay ka boodi jirtay iyadoo taagan, way ka dhici jirtay yani xanuunka haya keliya intuu la egyahay. aniga adiga goormaan noogu dambeysay xanuun noocaas inuu qabto oo aan idhaahna alxamdulilah iyo laa xawla walaa quwata ilaa billah. just think about that. meel kalan kaa tusaya qaarkeen waxaa laga yaabaa inaanan salaada tukanin oo 8 saacadood 9 saacadood Facebook wax ku qorayno laakiin salaada aanan tukanin. sankaaga naqaska ka baxay oo qora haddii ilaahay uu daqiiqad kaa joojiyo, dhakhaatiirtu waxay yidhahdeen 2 daqiiqo iyo bar haddii lagaa joojiyo major organkaaga shutdown bay sameynayaan, sida keliyaha wadnaha way shaqaday joojinayaan. haddaba haddii uu ilaahay yidhaahdo isbuucu markuu dhammaado warqad baa lagu soo dirayaa inta sankaaga naqas ka baxday awgeed baa lacagteeda lagaa rabaa, meeqa ayaad bixin kartaa? meeqa ayay lacagteeda noqonaysaa? haddii kaloo khasabaddaa lagaa xiranayaa qora. haddii lagu yidhaahdo shaqada lagaa ceyrinayaa walwal seexan maysa, you will be depressed. haddii furaha gaariga uu kaa lumo inaad waalatid wax yar baad ku siganaysa, saad iskula hadlaysid meeshaad dhigtay, reerkii ciyaalkaad ku xanaaqaysaa, maftaaxayga yar ameeye maalin walba meeshaan wax dhiga la heli maayo, soo yuukadeeda xaafadda. subaxii markaa soo toostid annagoon odhanin alxamdulilaahi aladii axyaana baanu iska kacnaa. dad baa isbitaalada jiifa oon kici karaynin. we have to give thanks to ilaahay subxaana wa tacaala. faa'iiso yar gabar yar ah oo la joogtay ayay waxay ku tiri waa dhimanayaa dooni maayo inaad aragtid anigoo sakaraadaya qolka igaga baxo, mana u malaynaya inaan noolaan doono, laakiin bay tiri haddii aan geeriyoodo waxaan doonayaa hooyo inaad baari u noqotid. ilmo yaroo 17 jira oo kansar u dhimanaya ayaa ka fakaraya hooyadii inaan la caasiyin. annagoo waaweyn oo 40 jirnana waxaanu doonaynaa inaanu salaada tukan. culammadu waxay tidhaahdaa salaadu sida kalluunka uu biyaha uu ugu noolyahay uusan uga maarmin buuso qofka muslimka aanu uga maarmin salaada. faa'iiso yar habeenkii malakulmoodka u soo galay ayuu ilaahay wuxuu ku sugay inay tiraahdo laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah. aniga adigo caawa haddaanu geeriyoono we don't have guarantee. wax garantiya aanu haysana ilaahay xaggiisa ma jirto inuuna sugayo. soo maalmahan yaroo adduunkan joogno inaanu ku dadaalno daruuri weeyaan. hooyadeed ayaan weydiiyey oo xusniga iyo walwalka qalbigeeda ku jira aan la soo koobi karaynin. waxaan ku iri how do you cope this? waxay igu tiri arrimahayga ilaahay baan u dhiibtay, asaga ayaana ku kalsoonaa.
laga yaabaa haddii arrintaas qaarkeena ay soo mari lahayd inay odhan lahayn dhakhaatiirtan u tago iminkana jarmalkan u socdaa. You know what? فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون. How about that? فلولا إذا بلغت الحلقوم مركانو حلقا كالحمها الروح ذكرنا وأنتم حينئذ تنظرون قرابة تاق ويدينا أكتا هذا أي جوكت xaaskaagii baa kugu dul ooyeysa, aabbahaabaa kugu dul ooyaya, hooyadaabaa kaa dul ooyeysa. caruurta yararkaayoo sinta lagu hayaana qaylada iyo sawaxanka iyo argagaxa meeshaas ka dhacaya awgeed ayagoon garanaynin waxa loo ooyayay iska ooyaya, laakiin garan maayaan hooya ama aabba inaysan soo noqonaynin. waxa uu kaloo leeyahay waltafat isaaqu bisaaq, markaanu saa lagu isugu kaa saarno macnaheeda waxay dib dambe u socon maysid. naftayda iyo tiinaba waxaan ku leeyahay saaxiib aanu tukano intaana lagu tukanin. haddaba faa'iiso markii naftu ay ka baxaysay iyadoo u geeriyootay waa say dhakhaatiirtu hadalka u dhigeen inuu ku dhacay xanuunka kansarka, ayay ilaahay la kulantay iyadoo laa ilaaha ila allah. qisaska xanuunkan kansarka aan ka haya aad ayay u fara badan yihiin, mana doonaya inaan depressed in ka dhigo, laakiin goolkayga iyo ujeedadeedu waxay tahay haddaad aragti qof kansar ku dhacay hadal adag ha ku orani. goormaad dhimanaysaa? waad kansarka daawo ma lahan, kumanaan kun baa u dhinta, cid noolaata ma jirto. aan idinkugu soo gabagabeeyo ninaanu saaxiib nahay, maxamed xasan la yiraahdo, oo muddo 10 sano ka hor ah magaalada London ku geeriyooday. ninkan waxaan idinkugu sheegayaa qisadiisu waxay leedahay dhadhan, waxay leedahay nuxur, waxay leedahay ku dayasho. wuxuu qur-aanku yiraahdaa wataciyaha udunun waaciya, wataciyaha udunun waaciya. أما وحو إلى هذا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا يعذبون يا حليا أرنتان سوسعتا وحي أتهي عبرئيكو وانكو قادشو لمن كان له قلب مد قلب له أو ألقى السمع ما إمنك هذا كان مقليه وهو شهيد وجهه قد محمد حسن قصديسة تري من ابن سوكوبية waxau nagula tukan jiray masaajid ku yaala xaafadda Wembley ee stadiumka weyn ee kubadda cagta lagu ciyaaro caanka ku ah magaalada London galbeedkeeda raalli hada. waxa uu ahaa nin ku dadaala salaada iyo jameecada. hadalkan laga fahmi maayo in anigu laftigaygu sidaas ahaa, isagoo naga fiicnaa, anaguna qunyar socod baan ahayn. ilaahay ceebteena ha wada asturo. salaad lama addimi jirin ilaa ninkaasu masjidku fadhii jiray, nin dhallinyaro buu ahaa. xanuun baa kusoo booday maalin maalmaha ka mid ah. isbitaalka la dhigay mudduu ku jiray, dhowr jeer baan u tagnay, jirkiisii oo dhan baa dhammaaday. maalmihii xaaladiisu ay halista ahayd ayaan maalin kala booqanay. waxaan jecelahay fadlan inaa qalbiga iyo dhagaha iyala deymisaan. I promise waa idiin soo celinaya sheekada soo socota awgeed. maxamed xasan wuxuu noo sheegay qolkiisa markaan tagnay, annagoo kooxaan tagno guruub ah. wuxuu yidhi halkaas qofkii xalay ta hurday nin Nigerian u ahaa. waxau geeriyooday asagoo le Jesus ku haya.
ilaahay qeyrkii asagoo u yeeranayo geeriyooday. haddaad caawo dhan jesus u yeeranaysa ku maqli maayo. markuu malakulmoodku soo galo ama jesus u yeero ama jin u yeero lagu jawaabi maayo. dabadeedna muddo yar kadib curtains were drawn. haddaad aragtid isbitaalada meelaha dadku dhimanayaan, haddaad aragtid qofkii daahiisu uu furnaa oo la dejiyey oo dhaqdhaqaaq la-aan ay jirto, waxay sameeyaan qolka markuu qof meesha hoolka dadka dhakhaatiir xanuunsan oo dhan ay ku wada jiraan markay dhintaan, waxaa la sameeyaa daahyadoo dhan baa la daboolaa, qof kasta daaha loo daboolaa, dabadeedna qofkaasaa la saaraa, dhan markaasaa meeshii la furaa. hebel iyo heblaayadii halkaa jiiftay meeday, he got better, wuu wacnaadayoo wuu soo caafimaado, dabaqa kalea la geeyey. daadisay dadka oola hadlaan dhakhaatiirtu, ay medically train dadka inay dejiyaan bay rabaan. haddii kale hadaan idinla kaftamo, waxay ka baqeen inay triller oo kale ku noqdaan. triller wuxuu ahaa 80gii hees Michael Jackson uu sameeyey oo dadka xabaalaha kasoo baxay oo kale wada soconayo miran ah. inoo wanayna kulligan wada socono anagoo ula iyo bakoorado wadana. calaa kulli xaal maxamed markuu nagu yiri ninkaas saasuu ku geeriyooday, ayuu wuxuu yidhi ilaahay hal shay baan ka baryaaye aamiin ii dhaha. this waxaan raba inaad dhegeysataan idinkoo mahadsan. waxaan marka isniri wuxuu oranayaa uu dardaarmaya, halkaas xoogaa lacaga ii taalla, halkaas saas weeye, heblaaba deyn igu leh, hebel baan wax ku leeyahay, hooyaday saasa lagu dhaho. ninkan waxaasoo dhan ma odhanin. wuxuu yidhi ilaahay waxaan ka barya 2 shay midkood inuu ii suurtageliyo. maxaad u malaynaysaa 2daas shay inay yihiin? dabadeedna wuu yaro aamusay. intii qolka fadhiday oo guruub rag aan u badnayn ayaa waxaan qalbiga ka jeclaysanay anagoon is ogeyn inuu deg deg noogu sheego. cause adiga laftigaaga bini-aadankaa waad baqanaysaa. halkaa sheekadii markay maraysay waxaa soo gashay gabar madow ah iyo gabar caddaana oo kuwa dhakhaatiirta neerska ahaa ah. ayagu way ogyihiin ninkan xaaladiisu siday tahay, anagu ma ogin, laakiin dib baan ka ogaan doonaa. gacmaha ayaan taabanaynaa, madaxaan u salaaxaynaa, waa la fadhinaa, waa la sabarsiinayaa. haddii qof xanuunsan aad u tegtid isbitaalka, weligaa ha ku dhihin 2 daarood kii fudud allaha ku geeyo, bcause qofku wuu ku maqlayaa xataa hadduu suucsan yahay. allaha u fududeeyo. you don't say things like that. waxaa lagu dhahaa maasha allah, meeshan jooga adaa ugu fiican, ilaahay waa kuu gargaaray, qurux baa kaa muuqata, saan moodayay uma ekid. qofka you give them hope, rajaa la geliyaa qofka. laakiin morally ha u tooganin adagoo isla wanaag samee. allah mid baa ku dhahaya yaasiinka lagu akhriyo. yaasiinka qof dhimanaya loogumaba talagelinba. qur-aanka inaan barano daruuri weeyaan. dadka dhimanaya yaasiin looguma talagelinin. shiikhii haddaad aragti nin shiikhoo qof geeriyoonaya ku akhrinaya suuratu yaasiin, shiikhii kuu noqon, iga dhammow dheh. soomaaliya waxaan xustaa anagoo yar muqdisho berigaan joognay, iskool buluusiya meel lahaa jirta. subaxii aroortii raadiga waxaa laga soo deynayaa samadiidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doonaa. haddaad heestaa maqshid dad baa la tooganaya. dabeedna iskuulkaan u jari jirnay malcaamadda. iskool buluusiyaan tegi jirnay. you have to be over 30 years of age to visit school buluusiya waagaas dowladdii gacanka ahayd. dabadeedna intaan la tooganin qofkaas ayaa shiikh yaraa imaanayo, suuratu yaasiin buu ku akhrinaya. suuratu yaasiinna waxay leedahay litundira man kaana xayan wayuxiqa alqowlu cala alkaafiriin. qur-aanka waxaan usoo dejinay litundira man kaana xayan,
qof nool inuu ilaahay ilaahyada baadilka ka baro xaqa ku hanuuniyo wayuxiqa alqowlu cala alkaafiriin gaaladana uu xujada ku oogo. suuradda sida loo soo dejiyay saasay ahayd. annagoo noqmayd baan ku akhrinaa. suuradduna waxay leedahay dadka nool baan la hadlaa. waxba yaana warin ku daalin. qolkii baan ku jirnaa. maxamed baan la joognaa. xaaladiisu halis weeye laakiin information badan ma hayno. wuxuu yidhi 2 shay oo quraan ilaahay ka baryo waa midda koowaada inuu igeeyo xaramka intaana geeriyoonin si aan u istaaga maqaamu ibraahim calayhi salaam. waa nin lagu yidhi labadaada keliyoodna ma shaqaynayaan, xubnahaaga kalena halis bay ku sugan yihiin, waxa kuu haray waa maalmo. wuxuu rabaa inuu xajka tago ilaahay marti u noqdo. walyatawafuu bilbeyti alcatiiq. waxaan rabaa inaan sawir ka qaadano hamiga shaqsigan ku jira. imise naga mida ayaa ku hamin lahayd inaan ilaahay tagno. waxay tahay masaajidkii Wembley aan ku tukan jiray inaan mar labaad ku noqdo anoo caafimaad qaba si aan aadaanka dhagahayga ugu maqlo. imise naga mida ayaa aadaanka iyo masaajidka garab marta maalin walba. mu'adinkuna uu leeyahay xaya cala asalaat, salaada u kaalaya, xaya cala alfalaax, kaalaya oo liibaan u imaada. haddaad timaadaan iyo haddaad imaan weydaan allahu akbar allahu akbar, rabbigayba inka weyn. laa ilaaha ila allah. aadaankaas arrin buu xasuusiyey laakiin tan maxamed baan idiin dhammaynaya. iga raali ahaada haddii qisaskaanu midba mid uu ii dhiibo because qur-aanku wuxuu ka sheekeeyaa qisaska for simple reason cibraa ku jirto. raali ahaada. waxa uu yidhana masaajidka dib ugu noqdaan rabaa si aan aadaanka u dhageysto. ilaahay wuxuu qadaray galabtaas galabtii ku xigtay inuu ku gacan sayray dhakhaatiirtii go-aankay qaateen oo ahaa inuu isbitaalka joogo uusan bixinin. dabadeedna wuxuu sameeyey wax la yidhahda self discharge. isbitaalka asagaa ka soo baxay, warqad yar baad saxiixaysaa, waxaad leedahay wixii gaara anaa ka mas-uula, waa tegaya. isbitaalkiibuu yimid, cafwan masaajidkiibuu yimid. haddii uu masaajidkii yimid waa casarkii, salaadii casarkaa lagu dhuftay aadaanka. allahu akbar allahu akbar, allah is the greatest. 2 jeer buu ku celiya. ashhadu an laa ilaaha ila allah. mu'adinkii weeye. I bear witness there's no deity worthy of worship except Allah. mar kale ayuu wuxuu yidhaahdaa wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah. I bear witness and testify Muhammad is his last and final messenger. حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. At this moment Muhammad indhihiisa iyo gar weyn buu lahaa. waxaa qoystay ilmo, waxaana uuna arkay wuxuu uu ku tamaniyay inuu helay. uu yimid gurigii ilaahay oo laga adimayo. annagoo caafimaad qabnaan masaajidka dhaafnaan iyo adigu ama salaadaha dayacna. laakiin ninkaanu waxa uu go-aansaday asagoo xanuunsan inuu soo baxo uu gurigii ilaahay soo booqdo si uu dhagihiisa ugu maqlo aadaanka. masaajida dadku iskama soo galaan, waa invitation ilaahay siiyo qofka. so ninkan waa lasoo invitation baa la siiyey. he had a VIP invitation. little we knew. haddii salaadii casarka la tukaday meeshana uu nala fadhiyey
aadna arkaysid inuu aada u xanuunsan yahay. maqribkii baa la gaaray, salaada marka laga baxay istaaguu ka dhacay, ambulance baa loogu yeeray. ambulanskii baa loogu yeeray, aniga iyo 3 kalaa raacnay. isbitaalkiibuu tegey. waxaa la yidhi xaaladiisu halis weeye. monitorkii wixii baa lagu xirxiray. meeshii buu cabaar joogay. subaxii dambe ayaa tii ilaahay u timid, isagoo weyse qaba ayay tii ilaahay u timid. very touching. ninkaasu wuxuu rabay inuu guriga ilaahay soo arko. wuxuu rabay inuu allah la sheekaysto. wuxuu rabay inuu ilaahay marti u noqdo. waxaan idinku leeyahay wataayaha udunun waaciya. gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan idinku yidhi aadaanku waxbuu i xasuusiyey. aadaanku waa very powerful weeyaan. laakiin annagu ma dhuuxno. wuxuu leeyahay allahu akbar allahu akbar, dabeedna waxaan ka dabalan allahu akbar allahu akbar, ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa allah. It's almost inaan yaro boobsiinaynan mooda. qur-aanku wuxuu leeyahay fa ayna tadhabuun, xaggaad u cararaysaan? in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin. ma uusan ahayn dikri loo soo dejiyay caalamiinta. waxaan u baahannahay inaan ilaahay waqti la qaadano. time out. ilaahay waqti aan la qaadano. marka ereygaan la dhaho waxaa moodaa inuu dhagaha u roon yahay. I'm not giving you sound bites. laakiin ilaahay inaan waqti la qaadano daruuri weeyaan. because ruuxdaadaa ku badbaadaysa. naftu ma cunto bariis iyo hilib. naftu waxay cuntaa wax la yidhaahdo taqwa. the more you give taqwa nafta, the more ay naaxdo weeyaan. dadka ilaahay aan ku xirnayn jirkay u raaxeeyaan, ruuxday cadaabaan. holiday ba aadaan 4 weeks. shilimaantii baa ka dhamaata, alkolay kasoo dhargaan, ayagoo cayray soo noqdaan, qalbigiina uu gubanaya because ruuxdu ma raaxaysanin. ruuxda u raaxee, jirkana cadib, dabadeedna jirkuna u raaxaysanaya. calaa kulli xaal masaajidka annagoo joogna ayaa waxaa soo gashay haweeney doonaysa inay islaamka wax ka ogaato. waxaan ka hadlayaa 15 years ago, roughly speaking. dabadeedna markii islaamkii looga sheekeeyey dhalashada maryamo ee ciise calayhi salaam suu dhashay, qur-aanka suu hadlo. mithaal ahaan yaana dhihaynaa suuratu al cimraan oo kale soo qaado aayadda 42. waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha istafaaki wataharaki wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin baa looga sheekeeyey. suuratu maryam baa looga sheekeeyey haddana. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. سورة waxaa looga sheekeeyey oo kale Maa'ida iyo suuratu Nisaa. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. waxbayse ila tegin waa idin qabanayaaye. dabadeedna nin dhallinyaraa oo Yaman u dhashay oo magaciisa la yidhaahdo Caadil oo aad u cod macaan ayaa la istaagay aadaankii. codkiisa xaddaa ku istaagaysa. bil-aadankana waxyaalaha ay ku qiiroodaan waxaa ka mid a codka macaan. xataa hadduu hees yahay dadka qaar baa marqaama
bal iska daa ilaahay kalaamkiisiiba la qaadaya. islaantii yareedee caddaanka ahayd way argagaxday. waxay tiri noloshayda ma maqal ninkaa waxa uu sheegaya, fadlan u tagoo waxaad ku tiraahdaan mar kale ku celi. waa biis meesha anagu ka dhahna dhalinyaradu ha lagu celiyay tiri. waxay u malaysaa kaniisadii oo muusiga lagu celcelinayay. This is not kaniisad. waa la adimay, waa la aqiimaya, waa la tukanayaa. Islam is a way of life. dabadeedna waa loo macneeyey. waxay tiri noloshayda wax ka macaan oon maqlay dhagahayga ay ku raaxaystaan ma jirto. sidoo kale waxaad ogtihiin Neil Armstrong. calaa kulli xaal gabadhii meeshiiba ku muslintay. ujeedada qisada oga dan lahaa intaasay ahayd. Neil Armstrong ninkii u horreeyey, labadii ninoo dayaxa tegay waastay hadalka u dhigeen. dhowr iyo 10 sano kadib markuu Masar u tegay holiday ayuu waxa uu maqlay aadaanka. waxa uuna yiri erayadan dhagahayga ku dhacaya markaan cirka tegay waxaan maqlay bay ahayd. cirka ma tegin, dayaxa markaan tegay codkaan maqlay buu ahaa. ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah. waxay ahayd wax kasta oo warbaahinta islaamka oo dhan fronta page inay noqoto. nasiib daro King Fahad bay kuu sheegeen. who cares King Fahad? calaa kulli xaal intaas ayaan doonaya inaan kala hadlo. laakiin walaalayaalow, xanuunkaas kansarka qofkuu ku dhaco ha loo naxariisto, ha laga warqabo, hadal fool xun yaan lagu oranin, waqti siiya, hana la dhegeysto. kansar baa kugu dhacay, goormaa dhimanaysa? who knows goortaa dhimanaysa? you know, qofku markuu dhimanayo waxa looga qariyo mataqaani? cibrada ku jirta nin shiikhaa nooga sheekeeyay. you cannot imagine why lagaaga qariyay goortaa dhimanaysid iyo meeshaa ku dhimanaysid. so ilaahay baa goortaan dhimanayno. laakiin qof dhibaataysan haddaad aragtid, soomaali ha ahaado, muslin ha ahaado, gaal ha ahaado, yuhuud ha ahaado, balaayo kale ha ahaado, u naxariiso. waxaadna ku tiraahdaa waxaan kuugu naxariisanayaa waxaa sidaas i amray calayhi salaatu wassalaam. ha ka xishoonin, u sheeg. qofka inaad u hanuunisid ma ahan, hanuunka ilaahay baa iskale. laakiin u sheeg waxaan kuugu naxariisanayaa because sidaan diinteenna ayaa dhigaysa. I think waan inku yara badiyey. laakiin xanuunkaas kansarka dagaal baan ku qaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaana rabnaa dadka soomaalida inay daawo raadsadaan, aysan qarsanin. ujeedadeenu intaasoo kale weeyaan. marka aan isku naxariisano, aan iska warqabno, walaalaheena dhibaataysan aan ka warqabno, especially dumarkiina. gabar baa dhibaato haysta ama madaxa laga qabto, xanuunada madaxa ku dhacay, heblaaye way isku buuqday, hebel bac baa ku xiran. no, you don't do that. dadka dhimirka laga hayo waxay u baahan yihiin oo keliya in la soo dhoweeyo oo lala hadlo. sometimes cid la hadasho keliya laayihiin. talk to them, you know. laakiin yaan la isku caayin, because adiga meeshaad ku dambeynaysa caaqibadaada ma ogid. sidaa awgeed waa in la isku naxariistaa oo la iska warqabaa. finally, isbuuca dambe iyo xiliyadan oo kale ayaa inoo ballana haddii aan waqti isku helno. haddii kalena insha allahu tacaala waynu isku soo ducayn doonaa. xanuunka la iskuma caayo tosmo dayigo. xanuunka la iskuma caayo, ilaahay baa keena. kulligiin waa idin salaamay, gudoomiye daahir cali kulmiye iyo asxaabta kale oo dhan. laakiin insha allahu tacaala yaan la isku caayin, yaan la isku fogeynin, yaan la iska daba keenin.
waxa ii muuqata arrimahan inay u dhagan nugushihiin. So qiso kaloo yaroo gooban oo 2 mirna idiin sheegaa haddaa raalli ka tihiin weeyaan. waxaan ka codsanaa dadka maxay xanuunkan cid ehel ama qaraabadooda ay ku dhacday ama dhibaato haysato xanuunkan garanaya, fadlan email iisoo dir, email iisoo dir amase inboxka iigu soo qor. dhibkaana jira, waxaana jira, dan wacyigelin baan ka sameynaa haddii ilaahay yidhaahdo. wacyigelin ayaan ka sameynaa because important weeyaan. ilaahay idin wada xifdiyo kulligiin meel kastoo aan joogo. dhulkeeni hooye waxaa ka jira abaaro ba-an, walaalhan aan usoo ducayno. gudoomiye daahir cali kulmiye halkan joogay Alpha Trust hala garab istaago, fundraising hala sameeyo, hala isxilqaamo. hooyo Soomaaliyeed baa caawa haraad u dhimanaysa, lama garan. hooyo Soomaaliyeed ayaa caawa haraad u dhimanaysa. qoyskay tahay macno ma sameynayso, tuuladay ku nooshahay macno ma sameynayso. jinsigeedu waa Soomaali, xaq waxay u leedahay biyo nadiifa inay cabto. hadday Sanaag joogto iyo hadday Hargeysa joogto iyo hadday Laascaano joogto iyo hadday Baydhabo joogto, it doesn't matter. marnaba ha yeelinina in la kala xirxiro oo qof walba Soomaaliya la yiraahdo reebel ha caawiyaan. anigu as far as I'm concerned hal qoys baan nahay. qabiilkeenna waxaa la yiraahdaa ree aadan aw ciid. ma maqasheen? ree aadan aw ciid. aadan waa odaygeena laga abuuray calayhi salaam, isagana ciid baa laga abuuray. that's your qabiil. igare ree aadan aw ciid baa la lahaa. marka haddii la yaa tahay waxaad tirahdaa ree aadan aw ciid baan ahay, Soomaali baana ka ahay. weligaa ha yeelin ree hebel baan ahay iyo tuule hebel baan ka yimid annagaa fiican iyo faan iyo kibir iyo waxaas ma jiraan. Soomaalidu waa simantahay, cid ka fiicanna ma jirto. hooyooyinka Soomaalida loo gargaaro, ha la waraabiyo insha allahu tacaala. daahir cali kulmiye caawiye Alpha Trust. calaa kulli xaal waxba yaan war idinku daalinin. waxaan rabaa inaan hal kelimo oo yar kaga tago. gabdhihii saxaabada nimankooda say ula noolaan jireen. Soomaalidu waxay malaysaa wax leedahay romantiga in laga keenay xaafadahan jaarka. flower yar baa lagu soo dirayaa dhac, islaan yaroo iljabinaysa dhac, dabeedna oo dhalaalaysa. It's not like that. gabdhaha saxaabadu subaxii markay ninkooda oo suuqa tegayo oo waxay cuni lahaayeen u raadinayo, wuxuu ku oran jiray cabdixafiid soo dhawaabtay, waxay gabadhu ku oran jirtay odaygeeda markay la dardaarmayso, ittaqi illaaha walaa ta'kul xaraama. rabbigaa ka baq, xaaraanna ha noo keeni. just think about that. hadda waxaa la lahaa waxaan ku cunin waa la cunaa. yes, ittaqi illaaha walaa ta'kul xaraama iyo waxaan ku cunin waa la cunaa. marka calaa kulli xaal dariiqaas aanu marna insha allahu tacaala. guriga ma soo dhicisay? waa ciyaartaas waa gelin dambe weeyaan. calaa kulli xaal intaasaan jeclahay in kaga tago. thank you very much for watching. allah idin karaameeyo, allah idin xifdiyo. walaalo fiican baa tihiin. wanaagga aan isku sheegno, dadkeenna aan gacan qabanno. intaanu kaloo kale dib ugu kulmi doono jamcada dambe. waa anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac iyo daahir cali kulmiye oo soo saaraha barnaamijka ah. waxaan kaga tegayaa taqoda ilaahay midnimo. asalaamu calaykum waraxmatullah. thank you. anigo see loo baktiyaa bahalka? tiirtii ay ka quusteen oo dhaheen goor dhow bay dhimanaysaa, gurigiina la aada. waxaan tegay qolkii ay seexanaysay. waxaan ku fariistay sariirteedii ay ku seexanaysay. waxaan arkay noodkii dhakhaatiirtu ay ka qoreen. waxaan arkay daawooyinkii loo soo qoray. qaarkood magacoodu
adigoo taagan wuu kaa dheeryahay weligaa ma maqal xataa lama aqrin karo. So I had to google it sidaan u fahmo waxay yihiin. waxaan waraysi la yeeshay gabar yar oo ay ku sirqarsan jirtay oo isku da ahaayeen. Faa'iza 17 meelahaasii jirta, ilmo yaroo saqiir ay ahayd. ujeedadeeda iyo baabaskeedu waxa uu ahaayo keliya say hooyadeed ii sheegtay notebookgeediina aan ka akhriyay inay dadka diinta gaarsiiso, dadka xanuunka kansarka qabana ay caawiso oo charity ay samayso. markii xanuunka uu aada u qabto sariirta ay saaran tahay ayay ka boodi jirtay iyadoo taagan, way ka dhici jirtay yani xanuunka haya keliya intuu la egyahay. aniga adiga goormaan noogu dambeystay xanuun noocaas inuu la qabto oo aan idhaahna alxamdu lilah iyo laa xawla walaa quwata ila billah. just think about that. meel kalan kaa tusaya qaarkeen waxaa laga yaabaa inaanan salaada tukanin oo 8 saacadood 9 saacadood Facebook wax ku qorayno laakiin salaada aanan tukanin. sankaaga naqaska ka baxayo qura haddii ilaahay uu daqiiqad kaa joojiyo, dhakhaatiirtu waxay yidhahdeen 2 daqiiqo iyo bar haddii lagaa joojiyo major organkaaga shutdown bay sameynayaan, sida keliyaha, wadnaha way shaqaday joojinayaan. haddaba haddii uu ilaahay yidhaahdo isbuucu markuu dhammaado warqad baa lagu soo dirayaa inta sankaaga naqas ka baxday awgeed baa lacagteeda lagaa rabaa, meeqa ayaad bixin kartaa? meeqa ayay lacagteeda noqonaysaa? haddii kaloo khasabaddaa lagaa xiranayaa qora. haddii lagu yidhaahdo shaqada lagaa ceyrinayaa walwal seexan maysa, you will be depressed. haddii furaha gaariga uu kaa lumo inaad waalatid wax yarbaad ku siganaysa, saad iskula hadlaysid meeshaad dhigtay reerkii ciyaalkaad ku xanaaqaysaa, maftaaxayga yar ameeye maalin walba meeshaan wax dhiga la heli maayo, soo yuukadeeda xaafadda. subaxii markaa soo toostid annagoon odhanin alxamdu lilaahi aladii axyaana baanu iska kacnaa. dad baa isbitaalada jiifa oon kici karaynin. we have to give thanks to ilaahay subxaana wa tacaala. faa'iiso yar gabar yar ah oo la joogtay ayay waxay ku tiri waa dhimanayaa dooni maayo inaad aragtid anigoo sakaraadaya qolka igaga baxa, mana u malaynaya inaan noolaan doono, laakiin bay tiri haddii aan geeriyoodo waxaan doonayaa hooyo inaad baari u noqotid. ilmo yaroo 17 jira oo kansar u dhimanaya ayaa ka fakaraya hooyadii inaan la caasiyin. annagoo waaweyn oo 40 jirnana waxaanu doonaynaa inaanu salaada tukan. culammadu waxay tidhaahdaa salaadu sida kalluunka uu biyaha uu ugu noolyahay uusan uga maarmin buuso qofka muslimka aanu uga maarmin salaada. faa'iiso yar habeenkii malakulmoodka u soo galay ayuu ilaahay wuxuu ku sugay inay tiraahdo laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah. aniga adigo caawa haddaanu geeriyoono we don't have guarantee. wax garantiya aanu haysana ilaahay xaggiisa ma jirto inuuna sugayo. soo maalmahan yaroo adduunkan joogno inaanu ku dadaalno daruuri weeyaan. hooyadeed ayaan weydiiyey oo xusniga iyo walwalka qalbigeeda ku jira aan la soo koobi karaynin.
waxaan ku iri how do you cope this? waxay igu tiri arrimahayga ilaahay baan u dhiibtay, asaga ayaana ku kalsoonaa. waxa laga yaabaa haddii arrintaas qaarkeen ay soo mari lahayd inay odhan lahaayeen dhakhaatiirtaan u tago iminkana jarmalkan u socdaa. you know what? فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون. How about that? فلولا إذا بلغت الحلقوم مركانو حلقا كالحمها الروح ذكينا وأنتم حينئذ تنظرون قرابة تاق ويدينا أكتا هذا أي جوبت xaaskaagii baa kugu dul ooyeysa, aabbahaabaa kugu dul ooyaya, hooyadaabaa kaa dul ooyeysa. caruurta yararkaayoo sinta lagu hayaana qaylada iyo sawaxanka iyo argagaxa meeshaas ka dhacaya awgeed ayagoon garanaynin waxa loo ooyayay iska ooyaya, laakiin garan maayaan hooya ama aabba inaysan soo noqonaynin. waxa uu kaloo leeyahay waltafat isaaqu bisaaq, markaanu saa lagu isugu kaa saarno macnaheeda waxay dib dambe u socon maysid. naftayda iyo tiinaba waxaan ku leeyahay saaxiib aanu tukano intaana lagu tukanin. haddaba faa'iiso markii naftu ay ka baxaysay iyadoo u geeriyootay waa say dhakhaatiirtu hadalka u dhigeen inuu ku dhacay xanuunka kansarka, ayay ilaahay la kulantay iyadoo laa ilaaha ila allah. qisaska xanuunkan kansarka aan ka haya aad ayay u fara badan yihiin, mana doonaya inaan depressed in ka dhigo, laakiin goolkayga iyo ujeedadeedu waxay tahay haddaad aragti qof kansar ku dhacay hadal adag ha ku orani. goormaad dhimanaysaa? waad kansarka daawo ma lahan, 10,000 baa u dhinta, cid noolaata ma jirto. aan idinkugu soo gabagabeeyo ninaanu saaxiib nahay, maxamed xasan la yiraahdo, oo muddo 10 sano ka hor ah magaalada London ku geeriyooday. ninkan waxaan idinkugu sheegayaa qisadiisu waxay leedahay dhadhan, waxay leedahay nuxur, waxay leedahay ku dayasho. wuxuu qur-aanku yiraahdaa wataciyaha udunun waaciya, wataciyaha udunun waaciya. أما وحو يرادا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا يادو لغا حدليا أرنتان سو سعوتا وحي أتهي عبرا وانا قادشو لمن كان له قلب مد قلب له أو ألقى السمع ما إمنك هذا كان مقلي وهو شهيد وجهه قد. محمد حسن قسريسة تري من ابن سوكوبية waxau nagula tukan jiray masaajidku yaala xaafadda Wembley ee stadiumka weyn ee kubadda cagta lagu ciyaaro caanka ku ah magaalada London galbeedkeeda raalli ahaada. waxa uu ahaa nin ku dadaala salaada iyo jamaacada. hadalkan laga fahmi maayo in aniga laftigaygu sidaas ahaa, isagoo naga fiicnaa, anaguna qunyar socod baan ahay. ilaahay ceebteena ha wada asturo. salaad lama addimi jirin ilaa ninkaasu masjidku fadhii jiray, nin dhallinyaraab u ahaa. xanuun baa kusoo booday maalin. حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. At this moment محمد indhihiisa iyo gar weyn buu lahaa, waxaa qoystay ilmo, waxaana uuna arkay wuxuu uu ku tamaniyay inuu helay uu yimid gurigii ilaahay oo laga adimayo. anagoo caafimaad qabnaa masaajidka dhaafnaan iyo adigu ama salaadaha dayacna, laakiin ninkaanu waxa uu go'aansaday asagoo xanuunsan inuu soo baxo uu gurigii ilaahay soo booqdo si uu dhagihiisa ugu maqlo aadaanka.
masaajida dadku iskama soo galaan, waa invitation ilaahay siiyo qofka. So ninkan waa lasoo invitation baa la siiyey. He had a VIP invitation. Little we knew, haddii salaadii casarka la tukaday meeshana uu nala fadhiyey, aadna arkaysa inuu aada u xanuunsan yahay, maqribkii baa la gaaray. salaada marka laga baxay, istaaguu ka dhacay, ambulance baa loogu yeeray. ambulanskii baa loogu yeeray, aniga iyo 3 kalaa raacnay. isbitaalkiibuu tegey. waxaa la yidhi xaaladiisu halis weeye. monitorkii wixii baa lagu xirxiray. meeshii buu cabaar joogay. subaxii dambe ayaa tii ilaahay u timid, isagoo weyse qaba ayay tii ilaahay u timid. very touching. ninkaasi wuxuu rabay inuu guriga ilaahay soo arko. wuxuu rabay inuu allah la sheekaysto. wuxuu rabay inuu ilaahay marti u noqdo. so waxaan idinku leeyahay wataayaha udunun waaciya. gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan idinku yidhi aadaanku waxbuu i xasuusiyey. aadaanku waa very powerful weeyaan, laakiin annagu ma dhuuxno. wuxuu leeyahay allahu akbar allahu akbar, dabeedna waxaan ka dabalan allahu akbar allahu akbar, ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah. It's almost inaan yaro boobsiinaynan muddo. qur-aanku wuxuu leeyahay fa ayna tadhabuun, xaggeed u cararaysaan? in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin, ma uusan ahayn dikri loo soo dejiyey caalamiinta. waxaan u baahannahay inaan ilaahay waqti la qaadano. time out, ilaahay waqti aan la qaadano. marka ereygaan la dhaho waxaa moodaa inuu dhagaha u roon yahay. I'm not giving you sound bites, laakiin ilaahay inaan waqti la qaadano daruuri weeyaan, because ruuxdaadaa ku badbaadaysa. naftu ma cunto bariis iyo hilib. naftu waxay cuntaa wax la yidhaahda taqwa. the more you give taqwa nafta, the more ay naaxdo weeyaan. dadka ilaahay aan ku xirnayn jirkay u raaxeeyaan, ruuxday cadaabaan. holiday ba aadaan 4 weeks, shilimaantii baa ka dhamaata, alkolay kasoo dhargaan, ayagoo cayray soo noqdaan, qalbigiina uu gubanaya, because ruuxdu ma raaxaysanin. so ruuxda u raaxee, jirkana cadib, dabadeedna jirkuna u raaxaysanaya. calaa kulli xaal, masaajidka annagoo joogna ayaa waxaa soo gashay haweeney doonaysa inay islaamka wax ka ogaato. waxaan ka hadlayaa 15 years ago, roughly speaking. dabadeedna markii islaamkii looga sheekeeyey dhalashada maryamo ee ciise calayhi salaam suu dhashay, qur-aanka suu hadlo. mithaal ahaan yaana dhihayna suuratu al cimraan oo kale soo qaado, aayadda 42. waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha istafaaki wataharaki wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin baa looga sheekeeyey. suuratu maryam baa looga sheekeeyey haddana. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. سورة waxaa looga sheekeeyey oo kale مائدة iyo سورة النساء. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
waxbayse ila tegin waa idiin qabanayaaye. dabadeedna nin dhallinyaraa oo Yaman u dhashay oo magaciisa la yihahda Caadil oo aad u cod macaan ayaa la istaagay aadaankii. de codkiisa xaddaa ku istaagaysa. bil-aadankana waxyaalaha ay ku qiiroodaan waxaa ka mid a codka macaan. xataa hadduu hees yahay dadka qaar baa marqaama, bal iska daa ilaahay kalaamkiisiiba la qaadaya. islaantii yareed ee caddaanka ahayd way argagaxday. waxay tiri noloshayda ma maqal ninkaa waxa uu sheegaya, fadlan u tagoo waxaad ku tiraahdaan mar kale ku celi. waa biis meesha anagu ka dhahna dhallinyarada ha lagu celiyay tiri. waxay u malaysaa kaniisadii oo muusiga lagu celcelinayay. this is not kaniisad. waa la adimay, waa la aqiimaya, waa la tukanayaa. Islam is a way of life. dabadeedna waa loo macneeyey. waxay tiri noloshayda wax ka macaan oon maqlay dhagahayga ay ku raaxaystaan ma jirto. sidoo kale waxaad ogtihiin Neil Armstrong. calaa kulli xaal gabadhii meeshiiba ku muslimta. ujeedada qisada oga dan lahaa intaas ahayd. Neil Armstrong ninkii u horreeyey, labadii ninoo dayaxa tegay waa siday hadalka u dhigeen. dhowr iyo 10 sano kadib markuu Masar u tegay holiday ayuu waxa uu maqlay aadaanka. waxa uuna yidhi erayadan dhagahayga ku dhacaya markaan cirka tegay waxaan maqlay bay ahayd. cirka ma tegin, dayaxa markaan tegay codkaan maqlay buu ahaa. ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah. waxay ahayd wax kasta oo warbaahinta islaamka oo dhan fronta page inay noqoto. nasiib daro King Fahad bay kuu sheegeen. who cares King Fahad? calaa kulli xaal intaas ayaan doonaya inaan kala hadlo. laakiin walaalayaalow, xanuunkaas kansarka qofkuu ku dhaco ha loo naxariisto, ha laga warqabo, hadal fool xun yaan lagu oranin, waqti siiya, hana la dhegeysto. kansar baa kugu dhacay, goormaha dhimanaysa? who knows goortaa dhimanaysa? qofku markuu dhimanayo waxa looga qariyo mataqaani? cibrada ku jirta nin shiikhaa nooga sheekeeyey. you cannot imagine why lagaaga qariyay goortaa dhimanaysid iyo meeshaa ku dhimanaysid. so ilaahay baa goortaan dhimanayno. laakiin qof dhibaataysan haddaad aragtid, Soomaali ha ahaado, muslim ha ahaado, gaal ha ahaado, yuhuud ha ahaado, balaayo kale ha ahaado, u naxariiso. waxaadna ku tiraahdaa waxaan kuugu naxariisanayaa waxaa sidaas i amray calayhi salaatu wassalaam. ha ka xishoonin, u sheeg. qofka inaad u hanuunisid ma ahan, hanuunka ilaahay baa iskale, laakiin u sheeg waxaan kuugu naxariisanayaa because sidaan diinteenna ayaa dhigaysa. I think waan inku yara badiyey, laakiin xanuunkaas kansarka dagaal baan ku qaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaana rabnaa dadka Soomaalida inay daawo raadsadaan, aysan qarsanin. maalmaha ka mid ah isbitaalkaa la dhigay, mudduu ku jiray, dhowr jeer baan u tagnay. jirkiisii oo dhan baa dhammaaday. maalmihii xaaladiisu ay halista ahayd ayaan maalin kala booqanay. waxaan jecelahay fadlan inaa qalbiga iyo dhagaha iyo yara deymisaan. I promise waa idiin soo celinaya sheekada soo socota awgeed. maxamed xasan wuxuu noo sheegay qolkiisa markaan tagnay, annagoo kooxaan tagno guruub ah. wuxuu yidhi halkaas qofkii xalay ta hurday nin Nigerian u ahaa. waxuu geeriyooday asagoo le Jesus 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 ku haya. ilaahay qeyrkii asagoo u yeeranayo geeriyooday. haddaad caawo dhan Jesus u yeeranaysa ku maqli maayo. markuu malakulmoodku soo galo
ama Jesus u yeero ama jin u yeero lagu jawaabi maayo. dabadeedna muddo yar kadib curtains were drawn. haddaad aragtid isbitaalada meelaha dadku dhimanayaan, haddaad aragtid qofkii daahiisu uu furnaa oo la dejiyey oo dhaqdhaqaaq la-aan ay jirto, waxay sameeyaan qolka markuu qof meesha hoolka dadka dhakhaatiir xanuunsan oo dhan ay ku wada jiraan markay dhintaan, waxaa la sameeyaa daahyadoo dhan baa la daboolaa, qof kasta daaha loo daboolaa, dabadeedna qofkaasaa la saaraa, dad markaasaa meeshii la furaa. hebel iyo heblaayadii halkaa jiiftay meeday, he got better, wuu wacnaadayoo wuu soo caafimaado, dabaqa kalea la geeyey. daadisay dadka oola hadlaan dhakhaatiirtu, ay medically train dadka inay dejiyaan bay rabaan. haddii kale haddaan idinla kaftamo, waxay ka baqeen inay thriller oo kale ku noqdaan. thriller wuxuu ahaa 80gii hees Michael Jackson uu sameeyey oo dadka xabaalaha kasoo baxay oo kale wada soconayo miran ah. inaa kulligaan wada socono anagoo ula iyo bakoorado wadana. calaa kulli xaal, maxamed markuu nagu yiri ninkaas saasuu ku geeriyooday, ayuu wuxuu yidhi ilaahay hal shay baan ka baryaaye aamiin ii dhaha. disis waxaan raba inaad dhegeysataan idinkoo mahadsan. waxaan marka isniri wuxuu oranayaa, uu dardaarmaya, halkaas xoogaa lacaga ii taalla, halkaas saas weeye, heblaaba deyn igu leh, hebel baan wax ku leeyahay, hooyaday saasa lagu dhaho. ninkan waxaasoo dhan ma odhanin. wuxuu yidhi ilaahay waxaan ka barya 2 shay midkood inuu ii suurtageliyo. maxaad u malaynaysaa 2daas shay inay yihiin? dabadeedna wuu yaro aamusay. intii qolka fadhiday oo guruub rag aan u badnayn ayaa waxaan qalbiga ka jeclaysanay anagoon is ogeyn inuu deg deg noogu sheego. cause adiga laftigaaga bini-aadankaa waad baqanaysaa. halkaa sheekadii markay maraysay waxaa soo gashay gabar madow ah iyo gabar caddaana oo kuwa dhakhaatiirta neerska ahaa ah. ayagu way ogyihiin ninkan xaaladiisu siday tahay, annagu ma ogin, laakiin dib baan ka ogaan doonaa. gacmaha ayaan taabanaynaa, madaxaan u salaaxaynaa, waa la fadhinaa, waa la sabarsiinayaa. haddii qof xanuunsan aad u tegtid isbitaalka, weligaa ha ku dhihin 2 daarood kii fudud allaha ku geeyo, because qofku wuu ku maqlayaa xataa hadduu suucsan yahay. allaha u fududeeyo. you don't say things like that. waxaa lagu dhahaa maasha allah, meeshan jooga adaa ugu fiican, ilaahay waa kuu gargaaray, qurux baa kaa muuqata, saan moodayay uma ekid. qofka you give them hope, rajaa la geliyaa qofka. laakiin morally ha u tooganin adagoo isla wanaag samee. mid baa ku dhahaya yaasiinka lagu akhriyo. yaasiinka qof dhimanaya loogumaba talagelinba. qur-aanka inaan barano daruuri weeyaan. dadka dhimanaya yaasiin looguma talagelinin. shiikhii haddaad aragti nin shiikhoo qof geeriyoonaya ku akhrinaya suuratu yaasiin, shiikhii kuu noqon, iga dhammow dheh. soomaaliya waxaan xustaa anagoo yar, muqdisho berigaan joognay, iskool buluusiya meel la dhahaa jirta. subaxii aroortii raadiga waxaa laga soo daynayaa samadiidow dabin baa kuu dhigan, lagugu dili doonaa. haddaad heestaa maqshid dad baa la tooganaya. dabeedna iskuulkaan u jari jirnay iyo malcaamadda. iskool buluusiyaan tegi jirnay. you have to be over 30 years of age to visit school buluusiya. waagaas dowladdii gacanka ahayd. dabadeedna intaan la tooganin qofkaas ayaa shiikh yaraa imaanayo, suuratu yaasiin buu ku akhrinaya. suuratu yaasiinna waxay leedahay litundira man kaana xayan wayuxiqa alqowlu cala alkaafiriin. qur-aanka waxaan usoo dejinay litundira man kaana xayan, qof nool inuu ilaahyada baadilka ka baro, xaqa ku hanuuniyo, wayuxiqa alqowlu cala alkaafiriin, gaaladana uu xujada ku oogo. suuradda sida loo soo dejiyay saasay ahayd.
annaguna qumayd baan ku akhrinaa. suuradduna waxay leedahay dadka nool baan la hadlaa. waxbayaana warin ku daalin. qolkii baan ku jirnaa. maxamed baan la joognaa. xaaladiisu halis weeye, laakiin information badan ma hayno. wuxuu yidhi 2 shay oo quraan ilaahay ka baryo. waa midda koowaada inuu igeeyo xaramka intaana geeriyoonin si aan u istaaga maqaamu ibraahim calayhi salaam. waa nin lagu yidhi labadaada keliyoodna ma shaqaynayaan, xubnahaaga kalena halis bay ku sugan yihiin, waxa kuu haray waa maalmo. wuxuu rabaa inuu xajka tago, ilaahay marti u noqdo. walyatawafuu bilbeyti alcatiiq. waxaan rabaa inaan sawir ka qaadano hamiga shaqsigan ku jira. imise naga mida ayaa ku hamin lahayd inaanu ilaahay tagno. waxay tahay masaajidkii Wembley aan ku tukan jiray inaan mar labaad ku noqdo anoo caafimaad qaba si aan aadaanka dhagahayga ugu maqlo. imise naga mida ayaa aadaanka iyo masaajidka garab marta maalin walba. mu'adinkuna uu leeyahay xaya cala asalaat, salaada u kaalaya, xaya cala alfalaax, kaalaya oo liibaan u imaada. haddaad timaadaan iyo haddaad imaan weydaan, allahu akbar, allahu akbar, rabbigayba inka weyn. laa ilaaha ila allah. aadaankaas arrin buu xasuusiyey, laakiin tan maxamed baan idiin dhammaynaya. iga raalli ahaada haddii qisaskaanu midba mid uu ii dhiibo, because qur-aanku wuxuu ka sheekeeyaa qisaska for simple reason. cibraa ku jirta. raalli ahaada. waxa uu yidhahda masaajidka dib ugu noqdaan rabaa si aan aadaanka u dhageysto. ilaahay wuxuu qadaray galabtaas galabtii ku xigtay inuu ku gacan sayray dhakhaatiirtii go-aankay qaateen oo ahaa inuu isbitaalka joogo uusan bixinin. dabadeedna wuxuu sameeyey wax la yidhahda self discharge. isbitaalka asagaa ka soo baxay, warqad yar baad saxiixaysaa, waxaad leedahay wixii gaara anaa ka mas-uula, waa tegaya. isbitaalkiibuu yimid, cafwan masaajidkiibuu yimid. haddii uu masaajidkii yimid waa casarkii, salaadii casarkaa lagu dhuftay aadaanka. allahu akbar, allahu akbar, allah is the greatest. 2 jeer buu ku celiyaa. ashhadu an laa ilaaha ila allah. mu'adinkii weeye. I bear witness there's no deity worthy of worship except Allah. mar kale ayuu wuxuu yidhaahdaa wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah. I bear witness and testify Muhammad is his last and final messenger. qur-aanku waa daawo. laakiin at the same time waxaa loo baahan yahay daawada kale oo caadigaana qofku inuu raadsado. marka su-aasheedu waxay ahayd sidee ugaga hortegi karnaa in la helo dad Soomaaliyeed oo dadka aan waxaan ku dhimanin. maxay ku dhici waxay dadka cadaanka way ka hadlaan xanuunkan markuu ku dhaco. hebel kansar baa ku dhacay, noocaas weeye, waa la noolahay, sidaas weeye. qofkii xanuunkiisii buu baranayaa, dhakhaatiirtii daawadii buu baranayaa, wuu la noolaanayaa. anaga laakiin waa difficult fara badan oon haysata. so waxaan ka fikirayay insha allahu tacaala mawduucan inaan idiin soo bandhigo, laakiin la helo dad Soomaaliya oo waxaan ka hortaga, oo anigii adigu aan iska bilowna. hadda ka hor barnaamijyo fara badan baan ka sameeyey, waana jecelahay insha allahu tacaala mustaqbalka dhow iyo kan fog inaan ka sameeyo. waxaad arkaysaa mararka qaarkood dadoo lafaha ogaga dhacay, dadoo madaxa ogaga dhacay. marka xanuunkaas sidii looga hortegi lahaa waa daruuri. waxaan rabnaa inaan ku qaadno dagaal cir iyo dhul ah oo la yiraahdo xanuunkan sidee looga hortegi karaa. mideeda kale waxaa kaloo jiro muhiimad gaara leh.
waxaa kaloo jiro muhiimad gaara leh oo iyadoo laftigeeda u baahan in la iska kaalmaysto. waxaa jira dad dhulkii hooyo jooga oo xanuunkan qaba, maybe daawada annagoo aan haysano halkaan oo kale inaysan heli karinin, laakiin waxaan awoodnaa daawadii inaan u gadno. hooyo maalinleed waxaan t v ka daawaday iyo maaqan youtube wuxuu ahaaye I think inay afgooye meelahaas joogto, labada naasba mid ogaga dhacay, intaasuu naaskii la ekaaday. yacni caqligaaga ma galayo. waxaad ka fakertaa hooyada xanuunka haya habeen iyo maalin oo ay taahayso 24 saac way taahaysaa. qof kale hooyadii ma ahan, adiga hooyadaa wey, because hooyo kastoo soomaaliya kulligeen weyna wada dhashay. marka xanuunkaas kansarku waa cadow. qof kasta waxay yidhaahdaan 4 qofba ku dhacayaa. so halkan waxaan hadda ku jirnaa 118 ruux. u divide garay inta qof oo naga mido oo inuu ku dhaco jaaniskooda uu badan yahay. sidaas awgeed haddaad aragti qof kansar ku dhacay ha ka cararin. kansarka qofka haddaad taabtay ma kala qaadaysaan, maaha xanuunada kala qaadka ama galmada lagu kala qaado ma aha. marka qof xanuunkaas ku dhacay haddaa aragtid, fadlan u naxariiso, gurigaaga kusoo casun, la sheekayso. sometimes waxay u baahan yihiin daawada ka sokow inaad dhegaystid oo keliya, just shush aan dhegayso. qofku inuu nafiso u baahan yahay, laakiin markuu gurigiisii uusan ku nafisi karinin oo ehelkii uu ka qarinayo amase maxaa la asxaabtii uu ka qarinayo, because annagaa xamanayna soomaali haddaan nahay. kansar baa ku dhacay, goormay dhimanaysaa, dhakhaatiirtu maxay u qabteen, kansarku daawo ma lahan. who told you that? moral support, that is the word. kansarku daawuu leeyahay. calayhi salaatu wasalaam wuxa uu yidhi xanuun ma jiro ilaa ilaahay daawadiisu hayaa. samaanad garanin. sidaas awgeed waxaan rabaa storigan weji kaloo ay leedahay inaan idiin sheego. waxaa jira nin soomaaliya oo igu yiri magacayga hasheeginaya meeshaan deganahay, laakiin UK degan. gabar yar uu dhalay ayuu xanuunkan ku dhacay. gabadhu waa madi, hooyadeed hore u dhimatay, xanuun kale u dhimatay ilaahay dartiis, ayada keliya u dhalay, xanuunkaas ayaa ku dhacay. fadlan waxaad qiyaastaan dhibaatada aabbahaas uu ku nool yahay. ogow xanuunka asaga waxa loogu keenay aniga adigana loogu keeni waayey, asagu annaga inuu naga sabar badan yaha laga yaabaa. ilaahayna wuu ogyahay qofka qadarkiisa inbuu qabtaa oo keliya. marka aniga adigu naga karti badan yahay. ilaahay wuxuu jeclaystay inuu itixaamo. waxaadna ognahay kulligeen qur-aanku inuu leeyahay alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun. suuradda cankabuud la yidhahda, axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa. dadkuma waxay u malaynayaan in loogaga tegayo keliya ilaahay baanu rumayno qora, ayagoon la itixaamaynin. this is part of itixaamka adduunka lagu maranayo. sidaas awgeed ninkaasu waxa uu ku nool yahay nolol aad iyo aad u dhib badan, laakiin waa ahlu salaad weeyaan. wejiga dhulka kama qaado. markaan ku iri arrintan sidee u koob garaysaayo oo la nooshahay, wuxuu yidhi mar kasta oo aan argagaxo ama dhibaata ii timaado waxaan idhahdaa xasbiya allaahu wa nicma alwakiil. rabbigay baa igu filan, mafaatiixdan isagaan u dhiibtay. in badanoo naga mid ah markii xanuunkaasu ku dhaco meesha xasbi allahu wa nicma alwakiil ay ka oran lahaayeen, waxaa suurtagala inay dhakhaatiirta iyo daawada oo keliya u cararaan. qalbigu daawo ma dego. xaqiiqatan dhakhaatiirtu daawada qalbiga ma hayaan. alaa bidikri illaahi tadma-inu lquluub. quluubtu waxay ku degtaa ilaahay xuskiisa iyo raxmadiisa. ninkaa yar gabadhiisa yartaa waxaa la siiyaa daawooyin jirkeeda uusan u dulqaadan karinin. daawada marka la siiyo wuxuu igu yiri waxay noqotaa violent, qof dagaal badan bay noqotaa.
naftii bay la dagaalamaysaa. aniga adiga caawa waxay u badan tahay in caruur aan dhalnay, caruurtaasuna ay caafimaad ku joogaan. goormo ayay ahayd last time aan idhaahno alxamdulilah? just ka fikar keliya markii kuugu dambeysay oo aad tidhaahday alxamdulilah, inankayga yara wuu caafimaad qabaa, alxamdulilah inantayda yara way caafimaad qabta. you see one ilownaa waxaas. qur-aanku wuxuu leeyahay lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid waid ta'adana rabbukum lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. so markaad aragtid qof aan xataa soomaali ahayn oo muslim ahayn uu kansar ku dhacay, u naxariiso. nebi maxamed wuxuu ahaa dadka kan ugu naxariista badan ilaahay soo saaro. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. ilmahaaga caawa chemotherapy lama siiyo. ilmo yaryar maadan aragoo xataa yacni 10 sano aan gaarin oo timihii ka dhaceen because of awoodda ay chemotherapygu ay leedahay ama xanuunka ay leedahay. so inaan isku naxariisano daruuri weeyaan. waxaan jeclaan inaan kugu soo gabagabeeyey sheekadan kansarka ku saabsan faa'iido yar. haddaad youtube-ka ku qortid arrimaha bulshada qiso xanuun badan oo cibro ku qaadasho mudan, waxaa kuu soo boodaya sawir barnaamijka hadda kahor aan ka sameeyey gabar yar oo soomaaliya, hooyadeed layihahda xamdi sheekh cabdilaahi, london joogta. naftu markay ka baxaysay sawirkeedii baan keenay iyadoo le laa ilaaha ila allah saad farta u taagaysa. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man kaana aakhiru kalaamihi fi dunya laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna. man kaana aakhiru kalaamihi fi dunya, qofka kelimada u dambeysuu dibnaha ka yidhaahdo ay tahay laa ilaaha ila allah, qalbigana uu kaga qanacsan yahay, dakhala aljanna. maftaaxii jannada ayuu haystaa. gabadhaas yartaa qisadeedu waxay lahayd argagixis. 6 sano oo universal tv aan ka shaqeynayay, qisadii iigu xanuunka badnayd oo aan duubay ahayd. faa'iido yar waxay ahayd gabar yar oo aada iyo aada u qurux badan, qoys ahlu diinana ka dhalatay. ilaahay subxaanahu watacaala qadartiisa ayay ku dhacday inuu qoyskaa itixaama. heer waxay gaartay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal waa idinsoo wada dhaweynayaa. waxaan rabaa mowduuc aada iyo aada qalbigay ugu weyn inaan kala hadlo. qiso dhaba oo ku dhacday saaxiibkay xaaskiisa oo in muddaaba walwal fara badan igu haysay, wacyigelin badanna aan ka sameeyey baan waxaan rabaa inaan idinka in kala hadlo. waxaana ilaahay ka rajeynayaa mowduucan inuu noqdo mid ummaddu ay ka faa'iido. muddo 3 sano ka hor ah ayaa magaalada london waxaa ku geeriyooday inaan aada iyo aada u jeclaa saaxiibanahay xaaskiisa, kaasoo u dhimatay xanuunka kansarka la yidhaahdo, kaasoo kaga dhacay xubno jirkeeda ka mid oo aan rabin inaan halkan ka sheego. ninkaasu waxa uu ahaa nin xoog badan, aqoon badan, dadku ay aada iyo aada u jecel yihiin. xaaskiisana wuxuu u jeclaa si xadka ka baxsan. xaaskiisana aada buu u jeclaa. 3 ciyaal ayay u haysay, 2 mataano ah iyo mid kale oo keligiisa. xanuunkaas gabadhaasu in muddo ayuu hayay, wayna qarsanayeen. oo dadkeennu waa dad qadarta ilaahay markay qofka u timaado xataa inaan ku eedeyno oo ku xumayno oo ku nacno weeye. kansar baa ku dhacay,
kansar baa ku dhacay, goormaad dhimanaysaa, meeqaa laguu qabtay, wax yar baa kuu dhiman. Qofka asagoo nool baad hadba cad goosanaysaa, mana ogid. hadalla xanuun badan oo waxa weeye dadka daqrinaya weeye. calaa kulli xaal yaan waxba war idinku daalinin. saaxiibkay xaaskiisii way geeriyootay, walaalkeenna allah u naxariistay gabadhaas, asagiina maskiinka xanuunka dhimirka ayaa ku dhacay dhibaatadii soo gaartay awgeed. codkayga ma maqashaan? I think codkayga si fiican baa loo maqlaa. codkayga haddaa maqashaan one soo qoraa asxaabay, idinkoo mahadsan. Thank you. codkayga haddaa maqashaan one soo qora. Okay, good, way maqashaan. Thank you, aad baa mahadsantiin. haddaba saaxiibkay waxaa ku dhacay xanuunkaas dhimarka ayaa ku dhacay kadib markii xaaskiisii ay kansar u dhimatay. asagiina waxaa la leeyahay waa waalan yahay, madaxaa laga hayaa, madaxaa looga jiraa, dhibaato noocaas. marka haddii xanuunkii la isku caayayo oo qofkii xanuunsaday la caynayo oo la leeyahay kansar baa ku dhacay, aqoonta kansarka u leenahayna ay yar tahay, dadka specialistaha oo ku takhasus soomaalidana ay yar tahay, qofkuu ku dhacaba uu qarsado, dadkeena dhibaato familkaas waxaa u imaanaysa xanuunka qofkaas shaqsiga qoyska ka mid ahaye ka badan baa u imaanaysa. sidaa awgeed waxaan doonayaa galabta inaan idinkala hadlo sidii loo samayn lahaa wacyigelin qofka xanuunku ku dhaco, gaar ahaan mathalan kansarka oo kale haddaan ka hadlayno, inaan la caayinin, la xumaynin, la odhan goormaa dhimanaysaa, goormaa tegaysaa. labadiina kan hormaraya ilaahay baa og, mawdkana waa loo siman yahay. sama garanin. kansarku sidaan ognahay waxa uu leeyahay 200 oo nooc weeyaan. bowel cancer baa jira, kuwa kale oo kansaro fara badan oo kala duwan ayaa jira. kan laabta dumarka kaga dhacaa jira, kan dhuunta ku dhacaa jira, sigaarka iyo waxyaalaha inta badan noocaas laga qaado, mid maskaxda ku dhacaa jira. wiigan waxaa la iisoo sheegay keliya 2 qof oo isku qoysa oo xanuunkaa u hayo, oo Soomaaliya, oo ku nool dalka Mareykanka. marka waxaan doonaynaa inaan dhisno online community Soomaali ah oo fikradooda iyo ra'yigooda isdhaafsata, oo aan isku caayinin xanuunkan, oo aan isku dhibanin. qofkii xanuunka uu ku dhaco loo naxariisto. hooyadaaba ku dhici karaa, xaaskaaba ku dhici karaa, aabbahaaba ku dhici karaa, walaalkaaba ku dhici karaa. waxaana ilaahayga raxmaanka ayaa keena. sheekada waa mid a haysata. aadan cabdirasaaq soo dhow. ilaahay subxaana watacaala caafimaad ha ku sii ola, ama qofka xanuunsanayo qoyskiinaba ah. haddaba walaalayaal, xanuunkaas ayaa dad fara badan oo Soomaaliya ay la nool yihiin, laakiin waxay ku nool yihiin qarsoodi. nolol aad iyo aad u dhib badan ayay ku nool yihiin. kuwa halkan jooga, kuwa wadankii joogana waad aragteen mararka qaarkood in la soo geliyo youtube-yada hooyo Soomaaliya joogta, oo hooyadu dee jirkeedu cawro maahane naaskii bararay oo madaxayga ama kaaga uu ka weynaaday ayaad arkaysaan, oo dhibaatadaas haysata, oo xataa kiniini yar aan haysanin oo xanuunka ka qaada. dabadeedna jirka intiisa kale ayuu ku fidaa, laabtu u gudbayaa, sanbabadu u gudbayaa, jirkiibuu goosanayaa. waana xanuun cadow ah oo very aggressive ah. aniga adigu galabta halkaanaan fadhinaa, caafimaad baana qabnaa. inaan ka qayb qaadano wacyigelinta xanuunkaas iyo sidii loola dagaalami lahaa, oo dadkeena aqoontooda kor loogu soo qaadi lahaa, uusan u noqon lahayn shay lala yaabo ama la naco ama la dhibsado. haddii qofka kansar ku dhaco macnaheedu maaha inuu dhimanayo. mathalan prostate kansarka oo kale, xubinta taranka oo raggu ku dhaca, waagii hore waxay oran jireen research ay soo saareen ragga waaweyn buu ku dhacayo 50 iyo wixii ka badana.
naa waxaa jira dhalinyaro yaryar 20 25 24 wiilal yaryar ah uu ku dhacayo. wiil Soomaaliya odhan maayo xubintaasaa xanuunkaas igaga dhacay, uu qarsanayaa. dabadeedna wuu ku weynaanayaa, jirkii intii kaloo ku fidayaa. hooyadii naasku kaga dhacayaa way qarsanaysaa, ama cervical cancer waxa la dhaho xubinta taranku kaga dhacayaa way qarsanaysaa. mararka qaarkood waxaa dhacda qofka guriga la nool buu qofka kale ka qaranayaa si uu qofkaas uusan u dhibanin ama oga naxinin. marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay qofka hadduu kansar ku dhaco dhakhaatiirta inaan u tagno, daawo la siiyo, qofkuna uu ilaahay isku xiro. markaad kansar maqasho waxaa kugu soo dhacaya qof timihii ka dhaceen, caruur aan dhali karinin, chemotherapy fara badan la siiyey iyo waxyaalaha la midka ah. laakiin kansarku timuhu dhacayaan oo keliya ma ahan, boqolaal nooc ayuu leeyahay. sidaas awgeed saaxiibkay xaaskiisii way dhimatay, isagii xanuunka dhimirkaa ku dhacay. qeyb badan oo ka midana dadkaas daawo waxay u raadsan waayeen. qadarta ilaahay marka laga tago wuxuu qofkaas daawo u heli waayey. waxay tahay dadka Soomaalida ayaa ku caayaya, heblaayi kansar baa ku dhacay, heblaayi kansar baa ku dhacay. waxaan xasuustaa hooyo Soomaaliyeed oo inankeeda la xiray hadda ka hor. dhibaatadii ugu weyneyd waxay kasoo gaartay dumarka Soomaalida ah. they unforgiving sometimes siday dadka ola hadlaan, iyo ragguba. wiilka 10 sana lagu xukumay, dariiqay ku arkaysaa. naayaa haynadeer inantii heblaayi soomatiid haa wiilka laga xiray. waxaan maqlay wiilkaagi waxaa lagu xukumay 35 sano. inadeer goormuu soo baxaya? ama wax laga yaabaa inay reer banaadir tahay. abbaay walaashay ii waran ma fiican tahay? haa wiilkaagaa la xiray 30 sana lagu xukumay, maxaa ka jira? yosii qofka asagoo nool baad cad goosanaysaa. ka waran haddii la oran lahaa kaalay guriga iigu imow, qada yara u samee, one day just ha nafista, give her a break yara in la siiyo. u sheekee ayadoo ha kula hadasho ama asagoo kula hadlo suu qofku u nafiso. laakiin qofkii annagaa caynayno xumaynayna. heer waxay gaartay dhibaatada ugu badan oo ay ka cabanaysa gabadhaasoo ahayd maxaa la lahaa arrinta ayadaa. waxaa kaloo la mid ah dadka caruurta baahida gaarkaa qaba, annagu waa caynaynaa. calaa kulli xaal walaalayaal iyo xawaanay orin ku daalinin. haddii qof xanuunkaa qaba aad aragtid, u sheeg inuu ilaahay subxaana watacaala leeyahay, geerida in loo siman yahay, khasab uusan ahayn qofku inuu dhimanayo, sabir iyo daawona lala raadsho, qur-aan fara badan